بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وعانو وناكسن دمان با خيارتي هودا naga dhageysanaysa halka nagala socotaani waa ogaal radio muujada dhererkeedu yahay 1320 AM iyo waliba idinkoo nagala socda caalamka intiisa kale shabakada ciwaankeedu yahay www.radioogal.com waa maalin axada oo bisha Juun ay tahay 29 sanadkan 2008 gooraysaduna haatan waxay ku taagan tahay 9 fiidnimo oo buura ah muujada dhererkeedu yahay 1320 AM waxa barnaamijyada had iyo jeer idin soo diyaariya anigoo Xasan Cabdullaahi Cumar Karate iyo saaxiibka Xasan Cali Xaashi Xasan Barre dhageystayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan oo waxa la soo gaaray xilligan idin soo gudbin jirnay war waxaanu caawa idin hayno waxa idin soo diyaariyay idin soo gudbinaya isla anigoo ah Xasan Cabdullaahi Cumar Karate بسم الله الرحمن الرحيم waxaa bishan Juun 25 sanadkan 2008 lagu aasay xabaalaha Biniyaas ee magaalada Dubai ee dalka Imaaraadka Carabta hogaamiyihii hore ee jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya ee ONLF Allah u naxariistay Sheekh Ibrahim Cabdullah Maah aaskiisa waxaa ka soo qayb galay dadweyne aad u tiro badan oo ka kala yimid qaarada kala duwan dadkii aaska ka soo qayb galay waxaa wajiyadooda ka muuqatay qiiro iyo murugo iyagoo dhinacna ka xun halyeyga ay waayeen dhinaca kalena u ducaynaya marxuumka oo garwaaqsan in naf walba ay geerida dhadhaminayso mas-uuliyiin sare oo ka tirsan ururka jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya oday dhaqameedyo siyaasiyiin ka socota ummadda Soomaaliyeed culimaawadiin iyo qaybo kala duwan ee bulshada ayaa ka soo qayb galay aaska halyeyga weyn ee reer Ogaadeniya Allah u naxariistay Sheekh Ibrahim ayaa maalintii axadda ahayd ee bisha Juun ay ahayd 22 sanadkan 2008 ku geeriyooday magaalada Dubai ee isla dalka Imaaraadka Carabta halyey Sheekh Ibrahim cimrigiisi waxa uu ku dhamaystay oo halgamida iyo aaya ka tarinta shacabka Soomaaliyeed ee Ogaadeniya wuxuuna caan ku ahaa gumaysi nacayb Sheekh Ibrahim wuxuu kaloo ahaa qoraa isagoo qoray ilaa iyo 4 buug iyo miduu hadda qoristiisa ku guda jiray dhacdooyinka dadka intiisa badan maskaxdooda ku soo dhacaysa marka la maqla magaca Sheekh Ibrahim waxaa ka mid ah dhacdadii lagu dilay gudoomiyihii iyo gudoomiye ku-xigeenkii gobolka Qabri Daare Allah u naxariistay Deeq Maxamuud Carab iyo Maxamed Cumar Tube kadib markii ay ka badbaadiyeen gudoomiyaha inuu u galo gacanta gumaysiga iyo dhacdadii Wardheer oo ay ku dhinteen dad ku dhow 100 ruux iyagoo ka difaacaya hogaamiyahooda inuu gumaysigu gacanta ku dhigo naxariista janna Allah ka waraabiye Sheekh Ibrahim waxa uu xilka gudoomiyenimada ku qabtay hab dimuqraadiyad ku dhisan shirweynihii koobaad ee ururka 1991 waxa uuna xilka kaga digay hab dimuqraadiyada shirweynihii labaad ee ururka 1998 kadib markii loo doortay Admiral Maxamed Cumar Cusmaan xildhibaan ka tirsan golaha sanadka ee waddanka Mareykanka oo lagu magacaabo Russell Feingold oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ayaa warmurtiyeed uu axadii soo saaray waxa uu si weyn ugu dhaleelay siyaasadda guracan ee kaligii taliye Mele Zenawi isagoo dawladda Mareykanka ugu baaqay inay joojiso kaalmada ay siiso maamulka Addis Ababa isla markaana ay ku cadaadiso sidii uu u joojin lahaa dambiyada oo ka wada Ogaadeniya iyo ku tumashada xuquuqda aadanaha iyo caqabadaynta hirgelinta hanaanka dimuqraadiyadda xildhibaan Feingold waxa uu warmurtiyeedkiisa ku sheegay in sanadkii u dambeeyay oo dhan uu si weyn uga walaacsanaa wararka ka imaanaya Ogaadeniya ee sheegaya weerarada ay ciidamada Itoobiya ku hayaan dadweynaha rayidka ee Ogaadeniya iyo joojinta maamulka Addis Ababa Ogaadeniya uu kaga joojiyay ganacsiga iyo gargaarka bini'aadanimada
wuxuu tilmaamay in ururada maxliga iyo kuwa caalamiga ahiba ay sheegeen in ciidamada Itoobiya ay gubaan tuulooyinka isla markaana ay dadweynaha ku ururiyaan goobo tilmaaman iyadoo aan raashin iyo biyo midna lagu siinin goobahaas. xildhibaan Feingold ayaa dawladda Mareykanka iyo deeq-bixiyayaasha kaleba ugu baaqay inay dib u eegaan kaalmooyinka ay Itoobiya siiyaan.